kulan wacan daawadayaal halkani waa Hogol TV oo aan idinku soo gudbino dhacdooyinka caalamka iyo juqraafiga caalamka ka jira. Maantana waxaan idinku soo gudbinaynaa wax ka baro 10ka dal ee qaaradda Afrika ugu dhul weyn. Waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa 10ka dal ee Afrika ugu dhulka weyn inaga oo ka bilaabi doono wadanka 10aad. Dalka 10aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Mauritania. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania waxay dhacdaa waqooyiga galbeed ee Afrika. magaala madaxda wadanka waxaa loo yaqaanaa Nouakchott. badka wadanka uu ku fadhiyo waxa uu gaarayaa 1,3,700 oo kiiloomitir laba jibaaran. shacabka Mauritania waxa ay gaarayaan 4.182 milyan oo qof. dalka 9aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Koonfur Afrika. Jamhuuriyadda Koonfur Afrika waxa uu dhacaa sida ka muuqata magaciisa koonfurta qaaradda Afrika. 1,221,000 oo kiiloomitir laba jibaaran waa badka wadanka Koonfur Afrika. waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 55.91 milyan oo qof. caasimadda wadankan waa isbedbedeshaa waxaana haatan magaalo madax u ah wadanka Koonfur Afrika magaalada Pretoria. dalka 8aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Mali. Jamhuuriyadda Mali waa wadan ku yaala galbeedka Afrika. waa dal xiran oo aan lahayn wax bada. badkiisu waxa uu gaarayaa 1,240,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. caasimadda wadanka Mali waxaa lagu magacaabaa Bamako. dadka u dhashay Mali waxa ay gaarayaan 15 milyan oo ruux. dalka 7aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Angola. waxa uu dhacaa koonfurta galbeed ee Afrika. badka wadanka Angola waxa uu gaarayaa 1,246,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. caasimadda wadanka Angola waxaa la yiraahdaa Luanda. dadka ku nool Angola waxa ay gaarayaan 29 milyan oo qof. dalka 6aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Niger. Jamhuuriyadda Niger waxa uu dhacaa galbeedka Afrika. waa dawlad xiran oo aan lahayn wax bada. badka Niger waxaa lagu qiyaasaa 1,267,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. magaalo madaxda wadanka Niger waa Niamey. wadanka 5aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika waa dalka Chad. Jamhuuriyadda Chad waxa uu dhacaa bartamaha Afrika. badka dawladda Chad waxa uu gaarayaa 1,284,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. caasimadda Jamhuuriyadda Chad waxaa la yiraahdaa N'Djamena. waa dal ay ku nool yihiin dad gaarayo 14 milyan oo qof. wadanka 4aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Liibiya. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Liibiya waxa ay dhacdaa waqooyiga Afrika. waa dal ka mid ah dalalka ugu dhulka weyn caalamka. waxa uu badkiisu gaarayaa 1,759,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. caasimadda wadanka Liibiya waxaa loo yaqaanaa Tripoli. dadka ku nool wadankani waxay gaarayaan 6.293 milyan oo qof. waana mid ka mid ah marinada ugu badan ay maraan dadka tahriibayaasha ee doonaya in ay Yurub u gudbaan. dalka 3aad ee Afrika ugu dhul weyn waa wadanka Suudaan. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Suudaan dalkani waxa uu ahaa wadanka ugu dhulka weyn Afrika ka hor inta aysan u kala go'in laba dal oo koonfurta Suudaan aysan ka go'in. badka Suudaan waxa uu gaarayaa 1,861,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. caasimadda wadanka Suudaan waxaa magaceeda la yiraahdaa Khartoum. dadka u dhashay wadanka Suudaan waxa ay gaarayaan 41,680,022 qof. wadanka labaad ee Afrika ugu dhul weyn waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo loo soo gaabiyo DR. waxa uu dhacaa bartamaha Afrika. waa dalka labaad ee Afrika ugu dhul weyn. badkiisu waxa uu gaarayaa 2,644,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. dadka ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxa ay gaarayaan 82 milyan oo qof. caasimadda wadankani waxaa la yiraahdaa Kinshasa. wadanka 1aad ee Afrika ugu dhul weyn waa dalka Algeria. dalka Algeria waa dalka ugu dhul weyn qaaradda Afrika. waxa uu dhacaa waqooyiga Afrika. badka Algeria waxa uu gaarayaa 2,381,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. Algeria waxa ay ka kooban tahay 48 gobol. waxaana ugu dhul weyn gobolka la yiraahdo Tamanrasset. gobolkani waxa uu ka dhul weyn yahay wadamada Jarmalka iyo Syria. caasimadda wadanka Algeria waxaa la yiraahdaa Algiers. dadka u dhashay wadankaasi Algeria waxa ay gaarayaan 40,061 milyan oo qof.
tobankaas dal ayaa ah tobanka dal ee ugu dhul weyn qaaradda Afrika.